بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى ما هذا سكله ما هذا إلهي كسبكو وحن روا halkan inaan ka jeediyo bayaan ka hadlaya ama ku saabsan guud ahaan xaaladda deegaanada SSC Khaatumo iyo gaar ahaan warbixin koobaysa dagaalkii shalay magaalada ka dhacay ee dhex maray ciidamada xaqoodirka SSC iyo maleeshiyaadkii Muuse Biixi Cabdi intaan warbixinteeda guud galin waxaan jeclahay dad fara badan oo birmigeyda ah oo deegaanka u dhashay oo rag iyo dumarba leh baa ku waxyeeloobay duulaankii qaawana Muuse iyo rajiimkiisu ay ku soo qaadeen deegaanada SSC waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhammaan eheladii dadkii ku waxyeeloobay duulaankaas uu soo qaaday Muuse Biixi ee ku dhintay dagaalkii beerka ah oo kala hortagay dadkii banaanbaxayaasha ahaa ama ku dhintay duqeyntii isdaba joogga ahayd ee muddada 8 bilood oo Muuse ka waday magaalada Ascaanood waxaan leeyahay intii ku dhimatay Ilaahay ha u naxariisto intii ku dhaawacantay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha uga dhayo intii ku barakacdayna iyagoo bad qaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku soo celiyay guryahoodii oo aamin ah shalayto waxa dhacay dagaalkaasi wuxuu ka dhacay magaalada Ascaanood wuxuuna ku fiday dhul dhan masaafo 100 kilomitir ah dagaalkaas masaafada inta la ka dhacay sababtiisa waxa lahaa Muuse Biixi Cabdi waayo Muuse Biixi Cabdi muddo 8 bilood ah uu dagaal ku waday iyo duqeyn magaalada Ascaanood iyo hareeraheeda muddada inta leeg Muuse waxaan waa diiday haddii la yiri xabadda jooji oo Soomaaliya dawladda deriska beesha caalamka iyo waxgalka Soomaalida isku dayeen Muuse Biixi Cabdi waa diiday inuu duulaanka qaawan iyo tacdiyada u joojiyo tacdiyada Muuse oo sida isdaba jooga u waday waxa ka dhashay in dadka deegaanka ay go'aansadeen inay tacdiyada Muuse iyagu gacmahooda ku joojiyaan sida daraadeed shalayto dagaal baa ka dhacay saldhigii uu ka deganaa deegaanka kan ee Gooja Cadde dagaalkaas waxa qaaday ciidamada xaqoodirka SSC iyo Hiil Harti dagaalkaasi waxa uu bilaabmay 4tii habeenimo taariikhdu markii ahayd 25 Agost wuxuu soo afjarmay 8 subaxnimo dagaalkaasi wuxuu soconayay 5tii 6tii 7tii 8tii 4 saacadood buu soconayay 4 saacadood dagaalkaasi waxa uu sababay jab weyn oo soo gaaray maleeshiyadii Muuse Biixi uu ku soo ururiyay qaabka beelaysan ee ku sugnaa agagaarka Gooja Cadde maleeshiyadaas waxa soo gaaray jab weyn oo runtii la oran karaayo wuxuu noqon doonaa jab taariikhi ah oo aan hore uga dhicin geeyga Soomaaliyeed ciidan 32 sanadood la ururinayay la tababarayay oo lagu barbaarinayay nacaybka iyo gumaadka dadka deegaanka kan baa meesha ku sugnaa dadkan dulqaad fara badan ay sameeyeen kadib waxay go'aansadeen in ay joojiyaan gacmahooda ku joojiyaan Muuse aqliga iyo garashadu waa ka maqan tahay waxa uu garanayana waxay ahayd inuu wax dilo oo wax burburiyo sida daraadeed luqadii uu yaqaanay baa dadkan go'aansadeen inay kula hadlaan iyadii uu fahmay markii ugu dambeysay luqadaasi waxa weeyaan in Muuse la tuso in burburka laga jawaabi karayo in dilka laga jawaabi karayo in gumaadka laga jawaabi karayo laakiin burburka iyo dilka iyo gumaadka anagu ma nugeysan dad shacab ah oo aanu derisnahay ama si kale aan dhibaato u geysanay waxaan la dagaalanay maleeshiyaadkii uu ku sheegay militariga ee uu la baxay ciidamada qaranka baan dagaalka kaga hortagnay aan ilaahayna waa naga guulay natiijada dagaalka ka dhalatay waxay noqotay in Muuse laga la wareego saldhigyadii ku yaalay dhammaan gobolka Sool laga soo bilaabo Maraaga ilaa iyo degmada Guumeys la yiraahdo saldhigyadaas waxa lagu la wareegay wax ka yar 6 saacadood lagu la wareegay dhamaantood Muuse ciidamadiisina waxa ku dhacay jab iyo naasabeel ay ka sheekayn doonaan jiilasha dambe ee deegaanada SSC
iyo kuwa gobolada waqooyi ee Soomaaliya intuba ma ahayn waxaanu dooranay ma ahayn waxaasi inay dhacaan waxaanu jecelahay waxayse ahayd waxaan ku khasbanaanay inaanu fallo si aan u joojino tacadiga Muuse oo dadka ay u geysanayo dagaalkaas ciidamada SSC ee xaqoodirarka ay wax ka soo hoyeen guulo waaweyn oo la taaban karayo ay ugu horeyso in laga sifeeyay deegaanadii oo dhan maleeshiyaadkii Muuse Biixi sidoo kale Muuse Biixi waxa lagu sameeyay wax loogu yeeri karayo dabka dhigis ama hubka dhigis ciidankiisii uu meesha ku soo uriyay dhammaanba hubkii ay siteen cuslaa waa laga reebay waxna waa la gubay waxna waa laga qabtay marka magac kale oo aan ugu yeero ma garanayo waxaan ku sameeynay Muuse ciidankiisii ama meesha kaga dhacay dabka dhigis bay ahaayeen waxaan isleeyahay qofka noocaas oo kale ah ama ciidanka ka amar qaadanaya Muuse Biixi aqligiisa ku shaqeynaya in dabka dhigis lagu sameeyay waxay ahayd maslaxad u soo hoyatay mandaqada waqooyiga Soomaaliya iyo geeska Afrikaba waayo qofka haddii aan aqligiisu qabanayn shuruucda caalamkana aan u hoggaansamaynin dhibaatadiisu cid kasta waa u dambeyn doontaa haddii Ilaahay ka dhigo maanta wuxuu ku bilaabay shacabka SSC laakiin waxa suuragal ahayd inuu meel kale dhibaatada ka geysto marka waxaan isleeyahay shacabka SSC waxay sameeyeen dan guud bay ka shaqeeyeen ninka daalimka ah ee kirigitaliska ah dadka inay ka qabtaan oo maleeshiyaadkiisii ay ka dhigaan kuwa sacaboolaya waxay ahayd maslaxad guud bay ahayd waa ku mahadsan yihiin ciidamada xaqoodirarka SSC arrinka ay sameeyeen wax shaki kuma jiro Muuse inuu wali u hamuun qabo dagaal oo uu doonayo inuu dhibaato kale sii geysto laakiin gacmihii uu maanta ku geysan lahaa dhibaatadu waa go'an yihiin Muuse Biixi mana u suurtagal aha inuu si yar dhibaato u geysto haddii Ilaahay ka dhigo insha Allah taala haddii Muuse uu isku dayo inuu dhibaato geystana kuwii shalay dabka dhigista ku sameeyay waa u diyaar waana sugayaan insha Allah taala haddii Ilaahay ka dhigo waana soo dhaweynaa Muuse tacadigiisa haddii marka la soo laabto inaan ka hor joogsan insha Allah taala haddii Ilaahay yiraahdo waxa kaloo meesha ka dhacday dagaalkaas in lagu qabtay maxaabiis aad u fara badan oo aan tiradooda la soo koobi karaynin maxaabiistaasi waxay isugu jiraan kuwa iyagoo dhaawaca la qabtay iyo kuwa iyaga oo bad qabaan waxba gaadhin la qabtay maxaabiista la qabtay ee dhaawaca ahi waxa weeyaan 42 maxbuus weeyaan waxaan hadda lagu dabiibayaa oo lagu daryeelayaa dhaawacyadooda isbitaalada kala duwan ee magaalada Lascaanood waxa kaloo Muuse laga qabtay 218 maxbuus oo bad qaba oo aan waxba qabin maxaabiistana waxa lagu hayaa xabsiga dhexe ee magaalada Lascaanood maxaabiistaas horena waa sheegnay haddana waa ku celinaynaa waxaan uga dhaqmi doonaa si bini'aadamnimo ku jirto oo waafaqsan xeerarka iyo shuruucda caalamiga ah ee u degsan maxaabiista caalamiga ah waxaan uga dhaqmi doonaa si waafaqsan qiyamka iyo sharafta iyo habdhaqanka dadkan ay iska leeyihiin ee caado u leeyihiin baan uga dhaqmi doonaa haddii Ilaahay ka dhigo maxaabiistaas waxa ku jira saraakiil waaweyn oo aan u aqoonsanahay inay ahaayeen dambiilayaal dagaal waxay noogu eedeysan yihiin in ay dambiyadii ka dhacay deegaankan iyagoo mas'uul ka ahaayeen gacantaanu ku haynaa waa soo qabanay haddii Ilaahay yiraahdo waan raggii ugu sarreeyay ciidamadii maleeshiyaadka ah meesha joogay markii la soo qabtay cadhadii aan u qabnay iyo dhibaatadii dadka ay u geysteen kulamaanaan dhicin waa isxakamaynay sidaa daraaddeedna waa badbaadinay waxaanuna ku siinay hay-adihii u xil saaraa maxaabiista inay daryeelaan iyagaana gacanta ku haya maxaabiistaas guud ahaan insha Allah taala haddii Alla ka dhigo waxa weeyaan dad Soomaaliyeed oo la soo khalday oo dhibaato fara badan iyagu geystay laakiin aan ballan qaadayna annagu inaan wax dhibaato loo geysan ee la waafajin doono sida shuruucda caalamka u taal ay qabtaan ma waafaqsan tahay waxaan jecelahay insha Allah taala haddii Alla ka dhigo inaan ka mahadnaqo dhowr qodob waxaan u mahadnaqayaa mahadda koowaad Ilaahay mahadda labaad waxaan u celinayaa xukuumadda ama dawladda Puntland iyo shacabkeeda dawladda Puntland waxaan uga mahadnaqayaa isgarabtaagii ay shacabka isgarab taagtay markay soo barakaceen ee ay deegaanadeeda soo galeen aad baan uga mahadnaqaynaa waana ku ammaanaynaa haddii Ilaahay ka dhigo insha Allah taala waxaan kaloo uga mahadnaqaynaa shacabka Puntland isgarabtaagii dhinac walba lahaa ee gees walba taabanayay ee ay ka geysteen halgankan barakacayaashii iyo dadkii soo qaxay ee deegaanadooda gaadhay uga mahadnaqaynaa iyagan haddii Ilaahay ka dhigo waxaan leenahay
magaciin ha jiro insha Allah taala diilha ka dhigo waxaan kaloo mahadnaqay ku xusayaa dawladda federaalka ee hogaaminayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse cabdi barre dawladda federaalka waxaan uga mahadnaqaynaa gargaarkii isdaba joogga ay la soo gaadhay barakacayaashii ka barakacay laascaanood waxaan kaloo uga mahadnaqaynaa dhaawacyadii xamar ay geysay ee ay damaanad qaaday ama kafaalo qaaday daweyntooda waxaan kaloo uga mahadnaqaynaa dawladda federaalka riixitaankii ay riixday ama ay waafaqday qaraaraadkii ka soo baxay golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee lagu cadeeyay Muuse Biixi inuu geysanayo tacadiyo isla bar ahaantaana loogu sheegay inuu joojiyo inahaas iyana kala fara badanba dawladda federaalka ku amaanayna hadii la ka dhigo waan uga mahadnaqaynaa hadii la yiraahdo beesha caalamka waxaan uga mahadnaqaynaa dadaaladii isdaba joogga ahaa ee ay u galeen sidii colaadan iyo xabadan loo joojin lahaa inkastoo dadaaladaas oo dhan ay ka joogsadeen ama ka xanimeyn ama ay madaxa ku dhufteen diidmadii iyo madax adaygii Muuse Biixi Cabdi waxaan kaloo u mahadnaqayaa dawladda Itoobiya oo iyaduna qayb lixaad leh ka geysatay sidii mandaqada tan nabad lagu soo dabaali lahaa isla markaana loo joojin lahaa colaada Muuse uu horanayo iyaduna waxay dhaaf weyday vitoogii ama diidmadii Muuse Biixi Cabdi cid kasta oo isku dayday in ay nabad ka hesho Muuse ma soo dhaweynin dawladda federaalka waxay soo dirtay odayaal dhaqan intaas soo bilood bay fadhiyeen Hargeysa Muuse waa qaabili waayay markii ugu dambeysayna waa ka diiday qorshihii nabadeynta ay wadeen marka Muuse wuxuu ahaa mar hore iyo mar dambeba dad nin ku dheeraad ah mandaqada iyo deegaanka in la qabtana ay waajib tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa noo fududeeyay waa qabanay waana iska saarayaan wixii uu ka diiday beesha caalamkana annaga ku khasabnay oo ka saaray deegaankayaga nabadaan lagu joogo deegaankayaga maanta waxaan rabaa insha Allah ta'ala diilha ka dhigo inaan halkan ka sheego dhibaato weyn baa ka dhacday deegaanka kan dhibaatadaasi waxay isugu jirtaa dhibaatooyin soo socday 15 sanadood iyo kuwo bilaabmay 9 bilood ka hor 15 sano ka hor Muuse Biixi maleeshiyadka Somaliland waxay duulaan qaawan ku soo qaadeen deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn isla markaana qaybo kamid waxay kula wareegeen awood ciidan bay kula wareegeen iyagoo aan haysan haba yaraatay ogolaashaha dadka deegaanka ah ama rabitaankooda aan ku joogin ciidamadaas meesha lagu soo ururiyay maleeshiyadkaasi waxay ka geysteen deegaanada ay joogeen tacadiye fara badan caburin dil dhac isdaba joog ah taasoo dadkii deegaanka ku abuurtay ama gelisay xaalad hubanti la'aan ah noloshooda iyo amnigoodaba waxay sababtay dad fara badan oo waxgarad ah aqoon-yahan ah inay iskaga haajiraan ama ay ka tagaan deegaanadii ay u dhasheen iyagoo door biday inay meel kale ku noolaadaan sababtuna waxay ahayd tacadiyadii ay maleeshiyadka Muuse Biixi ka geysanayeen waxa lagu dilay in ka badan 100 qof oo madaxa loo soo duubtay ammaankii ay lahaayeen waa sugaynaana waxba waa kaga qaban kari waayeen waxa cadaatay Muuse Biixi inuu yahay iyo maleeshiyadkiisu kuwa dilalka geysanayay sida daraadeed Muuse Biixi waxa uu qirtay in uu garanayo 42 qof oo lagu dilay laascaanood cid dishay maalinta uu miidiyaha ka sheegayo inuu inta qiran yahay ka horo Muuse lagama maqal qofka cidaas dishay eheladii umuu sheegin shacabkii deegaanka umuu sheegin waxgaradkii umuu sheegin wuu qarinaya Muuse intii hore oo dhan Muuse hadduu 42 ka cid dishay qirtay annaguna waxaan cadeynaynaa in inta kale iyo 42 kaba isagu uu dilay waayo haddii aanu isagu ku lug lahayn maalintii dilku dhacay buu sheegi lahaa oo oran lahaa marxuumkaas waxa dilay cidda talaabaan laga qaadaya may dhicin taas waxa ku tusinaysaa in Muuse iyo maleeshiyadkiisu mar hore mar dambaba ay qayb ka ahaayeen dilalkii qorshaysan ee laascaanood ka dhici jiray tacadiyada Muuse oo maleeshiyadka Soomaaliland deegaanka ka geysteen waxa kamid ah markii dadku ay wadkeysan kari waayeen dhibaatadii lagu hayay waxa bilaabmay kacdoon shacab oo la magac baxay kacdoonkii buluuga ahaa Muuse dadkaas doonaya inay dareenkooda cabiraan wuxuu kala hortagay rasaas nool buu kala hortagay isagoo aan u aabayeelaynin qof weyn iyo qof yar roole iyo caruur rag iyo dumar isagoo aan u aabayeelayn xasuuq baan buu geystay dadkiina dhibaato aan ka soo waqsan karin ama aan la ilaawi doonin buu geystay Muuse Biixi kacdoonka buluuga ah wuxuu dhalay in dadka deegaanku ay isu yimaadaan oo fadhiistaan oo ay shiraan Muuse markii shirku dhamaaday ee go'aamadii lagu dhawaaqi lahaa buu habeen bar madow weerar ku soo qaaday 6 February magaaladii iyo waxgaradkii joogay iyo garaadadii iyo salaadiintii joogay
muuse dagaalkaas wuxuu qorshihiisu ahaa inuu ku soo laayo oo man ku soo qabto dadka shirka ka qayb galay oo ismad ugu horeeyaan ilaahay fadligiisa dadka shacabka ahi muuse way ogaayeen dhagartiisa way iska difaaceen waxa halka ka bilaabmay dagaalka aad aragteen ama aad ka war haysaan ee muddada 8 bilood ka soconay magaalada Laascaanood nawaaxigeeda dagaalkaasi dagaal noocee buu ahaa dagaalkaasi wuxuu dagaal hal dhinac ka soconaya oo muuse weerar yahay oo muuse nabadii diiday oo muuse wada hadalkii diiday oo muuse wax wanaaga oo kasta ka raad gatay wuxuu geystay duqayn wuxuu geystay barakicin wuxuu geystay dil aan loo aabayeelin oo hal doorkii deegaanka intaas oo qof oo kamida uu ku dilay iyagoo gogashooda jiifa macna ma sameynayso muuse intuu qof dilo isagoo ka tacsiyay hadana waad wada ogeydeen abwaan jaamacakeedii oo ahaa abwaan weyn oo Soomaaliyeed muuse biixi iyo maleeshiyaadkiisa madfac ku dilay isla mar ahaantaana muuse wuxuu yiri iyo maleeshiyaadkiisu waanu ka xunahay dilka loo geystay isagoo meel kale u saaranaya dilka in la geystay jaamacakeedii cilmi abwaan jaamacakeedii cilmi waxa dilay oo aan cadeynteeda haynaa maleeshiyaadka muuse biixi cabdi maalintii uu dhintay abwaan jaamacakeedii waxaanu ballan qaadnay in gacantii abwaan jaamacakeedii dishay iyo dadkii ka horeeyaba aanu jari doono marag madoon weeye gacanta shalay waa jarnay fadligan Ilaahay baa iska subhanahu wa ta'ala dhibaatooyinkii muuse biixi ka geystay Laascaanood iyo deegaanada SSC waxay ahaayeen dhibaatooyin aan geeyiga Soomaaliyeed hore uga dhicin magaalo la duqeynayay 8 bilood si joogto ah loo duqeynayay madaafiic la dhacayay hubka noocyadiisa kala duwan loo adeegsanayay shacabkeedii la barakiciyay isla mar ahaantaana loo diiday inay ku soo noqdaan guryahoodii iyo magaaladoodii waxay arrimahaasi ahaayeen arrimo runtii ugub ku ah taariikhda geeyiga Soomaaliyeed hadda ka hor waxaan sheegay in Soomaaliya inta ay isdilaysay ee dagaalada suuqay ka jireen aanay ka dhicin waxa magaalada Laascaanood ka dhacay oo kale waayo ma jirto magaalo Soomaaliyeed marka laga yimaado dagaalkii ka bilaabmay magaalada Muqdisho 1999 marka laga yimaado magaalo Soomaaliyeed oo 7 bilood madfac la dhacay oo la duqeynay si joogto ah oo ugu yaraan 300 ilaa 350 qof laga barakiciyay geey Soomaaliyeed kama ay dhicin isla maalinta waxaan sheegay anigu in dhibaatada loo geystay dadka iyagu ay ahayd wax aan hore loo arag maalinta waxaan sheegay inaan ka jawaabi doono oo aan kaga jawaabi doono wax aan hore loo maqal Soomaalida waxay tiraahdaa ninkii waxaan lama arag kugu fala ama maqal baa lagu dhigaa waxaan ballan qaadnay in jawaabteedu ay noqon doonto mid aan hore loo maqlin waxaan ku faraxsanahay oo aan aad iyo aad ugu kalsoonahay in jawaabteedu ay noqotay waxaan hore loo arag oo aan hore loo maqal hore looma maqal in gaadiid dagaal oo 150 gaari iyo gaadiid dagaal in hal goob lagu qabsado hore uga may dhicin geeyiga Soomaaliyeed in maxaabiis Soomaaliyeed oo tiradoodu kor u dhaafayso 250 maxbuus loo kala qabsaday hore uma dhicin in 2 saacadood iyo waxaan dhaamin lagaga sifeeyo maleeshiyaadkii 15 sano joogay deegaanka masaafo leeg 100 kilomitir waxa soo dhamay waxa weeyaan tamanigii ama wixii aan sii rajeeyay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo xaqiijiyay wala maqashii aan sii sheegay muuse tii iyo mid lamida sugaysa hadii Ilaahay kariin insha Allah ta'ala dhibaatada inta leeg deegaanka ay soo gaadhay wuxuu u baahan yahay oo qof kasta uu dareemi karaya in loo fidiyo gargaar degdeg ah gargaarka degdega in la soo gaaro dadkii barakacay oo banaanada jiifa waxaan codsiga gargaarka waxaan u diraynaa dawladda federaalka ee Soomaaliyeed iyo madaxdeeda hogaaminaysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaan kula baaqa u diraynaa beesha caalamka iyo dawladaha deeqda bixiya in dadka ay la soo gaareen gargaar degdeg ah waana mas'uuliyad cid kasta meesheeda ku haysata ama ku saaran way hadii Ilaahay ka insha Allah ta'ala waxaan kala ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo dawladda federaalka Soomaaliyeedba in la soo diro kooxo baara dambiyadii dagaal ee muuse ka geystay deegaanada Tansool Sanaag iyo Cayn waxaan kala ugu baaqaynaa inay soo diraan dawladda federaalka iyo hay'adaha caalamiga ah dad ku takhasusay oo khubaro ah walxaha qarxa iyo sidii loo suulin lahaa
waayo goobihii dagaalka iyo magaalada gudaheeda waxa yaala waxyaabo qarxa iyo gumciyo gantaallo aan weli qarxin oo xilli kasta sababi karaya dhibaato soo gaarta dadka shacabka ah dadka shacabka ee magaalada ka barakacay waxaan ugu baaqayaa inay joogaan oo ay ku soo noqon magaalada inta laga sifaynayo waxyaabahaas noloshooda khatarta gelinaya haddii Allah ka dhigo insha Allah ta'ala sidoo kale waxaan dowladda federaalka ee beesha caalamka ka codsanaynaa inay gacan ka geystaan dib u dhiska magaalada Laascaanood taas oo soo gaaray burbur xoog leh oo saameyn ku yeelan doona nolosha dadka magaalada ku nool waxa la duqeeyay hospitaalkii guud waxa la duqeeyay hospitaaladii gaarka loo lahaa waxa la duqeeyay masaajidadii waxa la duqeeyay iskuuladii waxa la duqeeyay goobihii dadka noloshooda kaabayay oo dhan baa la duqeeyay sidaa daraadeed waxaan mar kale ku celinayaa beesha caalamka iyo dowladda federaalka ah inay ka qayb qaataan dib u dhiska burburkii soo gaaray magaalada Laascaanood qodobka ugu dambeeyay aan xusaya waxa weeyaan khudbadii Muuse Biixi uu maanta jeediyay waxaan ka cadeynay annagu haddaan nahay maamulka SSC Khaatuum iyo shacabka iyaguba uma socono dhul iyo deegaan aanan lahayn uma socono kumana xad gudbayno cid kale waxaanu soo xaqiijinaynaa in aanu sugno amniga iyo xasiloonida dhulka aanu gacanta ku hayno haddii Allah ka dhigo insha Allah ta'ala sidaa daraadeed Muuse Biixi waxaan u sheegayaa maanta wixii ka dambeeya isku day kasta oo Muuse ku damacsan yahay inuu ku dhibaateeyo dadka darafyada deegaankayaga degan in aanu kaga jawaabi doono sida ugu adag ama sida ugu haboon ee aanu ku qaban karno dhibaatada uu geysanayo qodobka u dambeeya ee bayaankayga waxaan xusayaa ama aan ku soo qaadanayaa khudbadii Muuse Biixi uu jeediyay maanta khudbadaas waxay ahayd khudbad aad iyo aad u foolxun oo aad dareemayso Muuse inaan weli caqligii u soo noqon waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba annagu uma soconno dhul aan dhulkayaga ahayn shalayto ciidamadoodu waxay awood u lahaayeen in ay galaan goobo fara badan oo gudaha u ah deegaanada ka baxsan dhulkayaga shalayto waxaan awood u lahayn inaanu dhibaatooyinkeena loo geystay aanu ka geysano deegaanadii ciidamadoodu ay gaadheen ama ay dul tageen waanu xakameynay ciidankayaga waa ku guulaysanay haddaba Muuse wuxuu ku baaqayaa inuu soo celinayo dagaal dambe oo nagu soo qaado dowladda federaalka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba waxaan ugu baaqanaa inay marxaati ka ahaadaan Muuse inuu soo wado duulaan hor leh oo uu doonayo in dhiig hor leh oo Soomaaliyeed ku daato annagu ma jeclaysanano mana soo dhaweynano dhiig isku daato oo Soomaaliyeed wiil Soomaaliyeed isku dhinta ma soo dhaweynayno wixii shalay dhacay mas'uuliyadda Muuse iska leh hadeertana waxaan ugu baaqanaa inuu ka waantoobo colaadda uu horanayo wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh